بسم الله second video weeyaan kaga hadli doono sigadu waxay ku yeeli karto sigadu waa adoo biyaha iska keena iyada adaan lamaana haysan weeye marka maxay ku yeeli kartaa oo adiga naftaada jimsiyan diiniyan iyo maskaxiyan maxay ku yeeli kartaa biyaha iska keenaysa maxay ku yeeli karaan lamaana la'aan lamaana markaad haysatid haddaad iska keentid iyo haddaad si kaleba ay kaaga yimaadaan waxay u badan tahay inkastoo aan lagu tarin ama cilmi baarisyaal kasta ay yidhaahaan wax kastaad badsataa waa baaska. Everything is good at moderation. يعني weegii mar laba weeg laba jeer wax saas laakiin habeen kasta haddii biyaha iska keentay habeen kasta waxyaalo badan iyo degdeg badan iyo dhibaatooyin badan baa lagala kulmaa. macnaheedu ana waxa weeye biyuhu waa nafaqada naftaada ku jirta weeye mineralska naftaada ku jira weeye marka waxaad iska had iyo jeer waxaad iska daadinaysaa waxa weeye nafaqadii aan kugu soo noqon baad haddana iska sii kaa imanaysa marka inaad wax kasta yaraysatid aad bay u fiican yihiin wax ninku ku adkaado oo bakhayl ku noqdan biyihiisa ugu fiican taas waa halkaas. jimsiyan maxay ku yeeli kartaa jimsiyan waxyaalo badan waa kasoo hadlay inay dhabar xanuun indho la'aan bishima jajab timaho kaabida dhuuxyo xanuun dhabar xanuun jirkoo dhan oo daala wejigo qayirmo oo aad moodaysa sidii qof qayilayo kale oo xumaada waxaan ku hayaana waa addiction waa dhib weyn waxyaalahaas oo dhan waa kasoo hadlay. maskaxiyan maxay samaysaa waxaa jirta maado oo chemical oo maskaxdaada ku jirta oo dopamine layahay. dopamine waxay qaabilsan tahay farxad gelinta waa waxa marka aad u baahan tahay marka aad aragtid waa waxa biyuhu kaaga soo daadanayaan afka iyo wixii aad u rabtid inaad cuntid xaraaradda wax kuu kicinay weeye xaraaradda maskaxda weeye farxad gelisada weeye marka aad biyuhu kaa imanayaan aad ilkaasaa isugu qabsanaysa indhaha sidaa u dallacay sida xagga kale ku tegayaan jirkoo dhan ku dhaqaaqaya jeegadu sidaa wax kaaga soo yaacayaan aad jiridhocoonaysid waxaan kaasoo go'aya jirkaa kasoo go'aya nafaqada jirkaa kasoo go'asa waxaa dareenkaa raaxada leh aad dareemaysid dareemaha maskaxda sameeya baa dopamine la yidhaahaa. marka dopaminecaas halkaas markay biyahaas kasoo go'ayaan iyo waxaa isla mid ah markaad horweynka iyo mirawaanada iyo kokaynka daraaga adag ugu xunxun markaad cunaysid iyo marka biyuhu kaa imanayaan baa kasii farxad iyo dareen fiican. marka adduunka barti wixii ugu fiicnayd ku farxad gelinaya markaad haysatid gacantaada ku haysatid oo markasta aad samaynaysid gabadh yar laqosalkeed iyo shaqo aadis iyo iskuul iyo imtixaanku baas iyo waxaan hawlihii yaryaree adduun sheeko dad iyo halkan mar iyo meel soo booqo cagaara iyo hawlihii yaryaree adduun iska normalka ahaa ku farxad gelin kari maayaan waxa qura ee ku farxad gelin karaa waa waxaas waa waxa dadka daraaga horweynka iyo kokaynka iyo dadka daraaga cabaa waa waxay darbiyada u jiifaan oo juqraaga inta u noqdaan aysan wax kale farxad gelinaynin adduunkan kaleba ay u arkaan khiyaaliya dadkan daraaga mooyaane wax farxad gelin karaa waa waxa qura adigana waa sidoo kale wax qura ee ku farxad gelin karaa waa inaad qol isku soo xubjida biyaha iska keentid naag 3 weeg baacso 4 weeg baacso shukaami habeenkii dhan waxa ku farxad gelinaya doonaysa waa intaa inaad ka heshid. marka
dhibtay leedahay waa dhibtaasoo adduunkii kaloo dhan bay kaa xidhasaayo waxay ku farxad gelinaysaa. midda kale waxay leedahay wax la yidhaaha pre ejaculation iyo inay kugu rido wax kaloo ayana la yidhaaha erection diffection erection inay labadaba waxa weeye mid waxa weeye gabadhii markaa u timaadid aad raadinaysay ku waalatay ay raadinaysay markaa u timaadid isla markiiba biyihii waa kaasoo duulayaan adigaan gabadhiiba waxbaba idin kala gaarin baa biyihii kaasoo duulayaan. waxaa sababaya naftaada train garaysa marka hore biyuhu degdeg kaaga yimaadaan maskaxdaada isla markiiba imagine garaynaysa markiiba way kaasoo daadanayaan waad isla yaabaysaa war waxaanaad maanta dhan baacinaysa isla markiiba maxaa kugu dhacay kuna farxad gelin mayso oo dee wixii aad raadinaysay maada helin wixii aad raadinaysay adiga si kale wax u train gareeyo naftaada wax kala qabatantay. teeda kale waxa weeye markii aad naagta u timaadidba oo kacsiga kaa guuro oo ragga qaar ku dhacdo waxaa sababaya dee waxaad baratay gacantaadii iyo waxaad daawatid iyo waxaasaad baratayoo qofkan iyo jijidistiisa iyo la dagaalankiisa iyo waxanoo dhan ba ku dhadhamayaan marka kaasna saasay noqotaa. taas waa maskaxiyan marka hamiga ninka hamigiisa way dumisaa oo adduun oo dhan bay ka jeedisaa oo hani yeelan maysid oo adduun oo dhan bay kaa xidhasaa. xaggii dumarkana way kaa xumaynaysaa oo dumarkii khatar kuma noqon kartid. ta saddexaad ee kale ee maskaxda ku samaysa waxaa weeye dumarku dabeeciyan ninka shahwada ku jirto way arki karaan shahwada ninka ku jirto ninka yacni qooqan way arki karaan dabeeciyan dhididkiisa hormones wax la yidhaaho dhididkiisa xitaa usoo uri karaan way garan karaan. marka aad adigii samayso biyahaas ka keento dee shahwadii gabadha kusoo jiidan lahayd baa 24/7 iska saaraysaa marka way garan kartaa soo jiidasho ma lihid attractiveness ma lihid yacni soo jiidasho ma lihid markaad laba wiig iska daysid biyaha isku celisid waxaad arkaysaa dumarkoo dhan oo aad soo jiidanaysid soo qabsanaysid sida magnetkoo kale iyana waa arrin kale oo shahwada aad iska saaraysid kugu sababaysa in maaragtay dumar badan aad weydid. physically ahaanna wataynu waxyaalo badan oo ay saa ku yeelaysa aynu kasoo hadalnay. diini ahaan biyahan iska keenaysa iyo qubayskooda iyo hawshooda ka sokow diintu waa qalbiga iimaanku waa qalbiga qofka sidiisana siigaystaana qalbiga uu ka guuraayo madaxuu ka nool yahay maskaxdaad ka fakeraysaa waxaan imajinkan iyo howlahan iyo waxaan maskaxdaad ka fakeraysaa oo anxiety-gan iyo had iyo jeer waxaa tahay qof muur ku jiro oo u dhexeeya muur ku jira tahay oo maskaxda ka fakeraya marka anxiety-ga halkan maskaxda abaad ka noosha qalbiga khushuuc ma lihid diinta kuma xidhnaan kartid ma khushuuci karto qofka qalbigu ka khushuucayo ka degan yahay waxa weeye diinta way kaa fogeynaysaa. midda kale waxay lumisaa concentrationka inaad saartid qof haddaad xafid badan oo kale ahayd oo iskuulka ku fiican oo kale qur-aanka ku fiican oo kale ma saari kartid howlihii adduun iyo qur-aankii iyo ma xafidi kartid ma saari kartid madax 24/7 maskaxdaada waxaa ku jira waxana kusoo wareegaya iyo excitement-igani farxaddan waxay ku siinayaan baa maskaxdaada ku xiran marka diintii kuma dheganaan kartid xaggaana weeye marka physically ahaan jimsi ahaan iyo diini ahaan iyo jimsi ahaan saddexdaaba way kuu dilaysaa oo welina waxbaba hadeer kama oranaya aad iyo aad bay kuu dilaysaa marka sigadu waa col warhooy iska daaya dhallinyaroy sidee la isaga daaya iyo howlo badan oo kalena waa ka jawaabi doonaa insha allah.